السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaalkan cusub oo aynu kaga hadli doono shirkad Propim ah oo bixisa akoono challenge ah. Sidaan wada ognahay shirkadii MyForex Fund hawada ayay ka baxday shuruuc lagu qabsaday oo dawladda wadanka ay ka dhisan tahay ee Canada. Shuruuca iyo waxyaabo ay ku qabsatay darteed ayaa loo xiray. Ma ahayn scam ahayd, dadku waxay yiraahdaan scammer bay ahayd. Maya shuruucdii iyo waraaqda la soo saaray waxa ku qornaa heshiisyo dawladda Canada ay u dhigtay shirkadda Propimka inay shirkaddan jabisay. waa macquul in soo laabato waana macquul in soo laaban weydo saas lagu xiro kale maxkamaddu waa isku jira Canada iyo wadamadaasna waxa ay sameeyaan shirkadahan aad bay u xadidaan. shirkad hore hada garanaysaan oo Funding Talent loo oran jiray ayaa kamid ahayd shirkadihii waagaas la xiray. marka shirkaddan baynu eegaynaa Federal Crest bay ahayd iyadoo wax ka dhisan tahay Qobrus bay ka dhisan tahay xarun weyn oo kalena Dubai bay ku leedahay locationada u badan yihiin. marka waxaynu fiirinaynaa shirkaddan iyo waxyaabaha aan ku dooranay. anigu shirkaddan waxaan u bixiyay bedelka MyForex Fund. halkan hadda aragteen Telegramkeena Summifest qoraalka dheer ayaan ku soo qoray oo ah Federal Crest waa bedelka MyForex Fund. ka waxyaabaha ku wanaagsan tahay ayaan ku taxnay iyadoo qoraal ahaan ah maanta muuqaal ayaan ka duubaynaa insha Allah. marka koobaad ku soo biir linkigeena description-ka yaala YouTube-ka muuqaalkan hoostiisa kadibna wuxuu ku keeni doonaa Telegramkeenan Summifest kadibna waxaad ka heli doontaa linkiga Federal Crest. marka Federal Crest walaalayaal halkan linkigan ayaad click siinaysaa halkan Summifest ku taala. marka linkan uu khaas inuu yahay Soomaali ahaan haddii aad wax dheeraada ama aad u baahatid caawimaad dheeraadna waxaad taaban doontaa linkigan hoose kale WhatsApp-ka aad weydiin doontaa wax kasta oo aad uga baahan tahay shirkaddan iyo su'aalaad ka qabtid iyo dad rabtiin call lagu furo oo lagu buuxiyo Telegramka WhatsApp-kan ayaad click siin doontaa isaga la xiriir doontaa insha Allah. marka aad linkigan Federal Crest aad click siisid waxa uu koodin doonaa dashboard sidan oo kala ah. dashboard-kan WhatsApp-ka website-ka shirkadda. marka shirkaddu laba account ay guud ahaan bixisaa laba qaab. marka koobaad akoonadani guud ahaan waa challenge laba step baa la marayaa laakiin laba ay kala qaybsamaan. waa akoomo waaweyn oo loogu talagalay dadka xirfadleyda magarasa professionalka ah iyo akoono yaryar ama meel dhexaad ah oo loogu talagalay dadka xirfadle ah laakiin akoonada waaweyn aan ku trade gareyn karin ama riskiga intaas leeg aan qaadan karin. marka koowaad marka saan soo gashid halkan ay ku qoran tahay trading programs ayaad click siinaysaa. markaad click siisid hoos soo degi kartaa. marka soo degtid marka hore xusaya akoonada waaweyn ka pro trader account types baa leedahay. waxay ka kooban yihiin 3 akoon 250,000 500,000 iyo 1 milyan. kayagiiba hadaan laba si kala qaybsamaya. halka haddaad click siisid waxa weeye normal oo markuu normalka yahay caadiga akoon caadi. halkanna hadaan click siiyo pro trader aggressive. marka waxay kala duwan yihiin normalka isaga waxa laga rabaa waxyaabaha laga rabo in target kale kale profit target kale waa 10 balaynu kan eegno waa 20% ayaa laga rabaa in profit target labada face baad gaartay. bal ka laawo normalka taabo. normalka haddaad taabatid maximum loss-ku waa 10 maximum daily loss-kuna waa 5 laakiin aggressive soo ka duwan yahay. maximum loss-ku waa 20 maximum daily loss-kuna waa 10 sida uu profit target ku 20 ka yahay. marka way isagiyo double ah kolley waa arki doontaan xagga profit share kuna waa 90% profit split-ka aggressive marka la joogo laakiin pro trader normal marka la joogo waa 80. marka qiimaha uu kala duwan yihiin price-ka kan $1 iska weeyaan 999 laakiin pro trader-ka waa 199. marka waa double weey waa akoonkii oo lagu labanlaabay. marka waxa wanaagsan qofka hadduu akoon weyn qaadanayo aan wax kula talin lahaa inuu kan trader kan normalka ah inuu iska qaato
sababtoo kan aggressive ka ah isaga waa kan oo laba laaban waa kan profit target 20 baa laga rabaa waxyaabo badan baa laga rabaa ka kan iska qaadatid hadaa ku 200 rabtid lacag fiican ku soo saari karaa labada face dad dhaftid lagama rabo profit target marka akoonka live ka heshid hada shan ku dad shan tood ka bixi kartaa waxa mushkilada ma laha 80% qiimahaagas ka baxsan markii ka akoonada waaweyn aad bay muhiim yihiin anigu aad baan uga helay kan halka milyan tusaale ahaan 3000 waxa lagu qaadan karaa 3 qof oo kale ka isagoo normal as qaadaysa 10% loo tar doontaa kadibna wixii ku soo baxa oo faa'iido ah ayaad markiiba la bixi kartaa 10% aad ku tartid waa 100,000 marka 3 qof iskaga filanta wixii dhammaan akoonkiina waa maalisaano haddaan hoos u soo digo akoonada caadiga ah ee anaguna aan ka haysano aanu ka furanay shirkadan waa kuwan waxa loo yaqaanaa akoonada micro akoonada micro loo yaqaanaa waa kuwan micro trader account marka iyagu waxa kala qaybsamaa 15,000 30,000 iyo 60,000 iyaguna sidoo un bay leeyihiin micro aggressive iyo normal marka normalka markasta aan ku taliyo labada akoonba marka haday normalka eegno akoonka 60,000 ayaan anagu jaabinay aan qaadanay oo shaqada si fiican ula macaamishay oo wax kasta oo ruleskeeda ah aan ku jaabinay hadaa rabtaan akoonka ay tusana waa kan akoonkaas aan qaadanay laba face ah magacu waa kan arki kartaan akoon 60,000 ka akoonka 60,000 tusaale ahaan waxa laga rabaa lacagtiisu waxa weeye iska 300 profit split-ka marka faa'iidada aad ku dartid 80 weeye marka ma laha wax target ah akoonka marka realka loogu dhiibo ta 5 ku dartid markiiba faa'iidada aad la bixi kartaa shirkaddan waxay dadku soo jeetaan waa batanba ka wax kale akoonkaaga profit split-ka ku hel coin shortly akoonka hadda maanta farsid 15 maalin kadib profit split-ka qaadan kartaa saahan hal maalin ka gudbi kartaa phase 1 hadana phase 2 ka gudbi kartaa account fund marka uu siina waxa samayn doontaa faa'iido ku bixido ka samaysid waa kala bixi kartaa halka profit target-ka phase 1 waa 10% phase 2 gana waxa weeye 5% انت عشاء تكون تريجرين كتولي حين معلومات يعني اللي حين معلومات هذا فائدة كده رويدي ريتراي بقى والسنة يا بس unlimited free retry يا القرآن مركب حوالي مركز طاعت جاري كرويدي تارج هاي free retry بقى والسنة هذا شخص أنا ما يهات مركز هو بوش يعني مركز مملوس كوا حوالي 10% وأبو معقولي هاي أبو مناسية هاي دلوس كنا 5% كده محيد وحوالي ما قرأنا سا transparency وعادو كوبن ما شركتي هوري رولز كبدن يعني هيدين حفظ سكيل از وحير معها ووحير او ما قرأنا سا يعني واضحة هل كان بروفيت تارجت كا فند اكاونت كا والزيرو يعني هذا هل percent كنت تحت والله بحكي كذا واحد marka waxa isleeyaynaa saddex step baa la maraa labada step waxa weeye challenge iyo verification kana waa kii akoonka realka ahaa kalkan bay dhamaan faahfaahintoona nagu qorayaan normalka inagu dooranay 60 casho ayaad haysataa trading days ku zero hada maanta ku gudubtid baa lagu siinaya akoonkaaga maximum loss ka inuu kan baan nahay sababta normal baan nahay kan waa aggressive ka 20 kan inagu 10% weeye daily loss ka maximum daily loss ka inagu 5% kan baan nahay normal weeye profit target waa 10% inaga ka aggressive 15 inaga 10% challenge-ga verification ka step ka labaad inta waad qararaysan maximum loss waa intaas waa sax 5% daily loss ka waa sax profit target inaga waa 5 kana 15 weeye marka aggressive ka iska ilaaliyo mar walba ka digaya marka step 3-ga normal ka ay inagu qaadanay maximum inactivity waxa weeye hadda triggerin weey 30 maalmood in baa uu qabanaya marka waan triggerisa qasab weeye maximum loss ka waa 10% waa garanayna
maximum daily loss kuna waxa weeye 5%. profit target ma laha lacagtaada kala bixi kartaa. profit share kuna waa 80. marka inagu akoonkan 60 ka waan tijaabinay kuna waa la mid kuwan waaweyn iyaguna waa la mid. kuwan wax kula talin lahaa kan hal qof qaadan karaa $1, kan laba qof way qaadan karaan, kana 3 ama 4 qof way qaadan karaan. kaydu waqti baad ka qaadanaysaan akoonkan miyo kala hadaad qaadatid 3 ama 4 qof ku qaadataan, 3 qof hadaad ku qaadataan oo kale kun bay noqonaysaa. 4 qof hadaad ku qaadataan 800 ama 700 noqonaysaa. marka 10% dad qiimaha aad ku dartid tusaale ahaan labada Facebook marka ka gudubtid akoon 1 milyan ah marka la siiyo 10% dad ku dartid waa 100. 10% kaliya dad ku dartid waa 100,000. 100,000 5 qof ku qaybsan kartaan 20 marka Soomaalidu ma yaqaanin waxaan sharing loo yaqaano ummadaha ka wali sharing wali akoonka dhowr nin baa ka wada mas'uula istiraatiijiyada isku raacayaan hal qof oo dhiibeyaan halka qof ayaa u wadaya haddaan waxay iibsan karaan dhowr akoon oo noocan ah dhowr qof is garanaya ama asxaaba ama family ah kadibna oo loogu talagalanayo cagti faa'iido soo baxdana waa kala qaybsanayaan koonkana weligood oo maalayaan markooda laga yaabaa inay boqol ka shaqeeyaan wixii ka dambeeyana de lacag badan ba ka shaqeynayaan laakiin kulli way haystaan ka mugban markaan Soomaaliya inta kula talin lahaa annaguna waa ka caawinaynaa qof mentor ah ayaan ku daraynaa salaana haday 5 qof oo kale yihiin qof mentor ah baan groupka WhatsApp kooda ugu daraynaa isaga talooyin iyo tiriirada qaadanaya haday iyagu cid kale u dhiibayaan iyo haday iyagu soo almaas garanayaan qofkaas ka sii tijaabinaya oo la soconaya xaaladooda koonada waaweyn iyaga waxaan u sameeynay mentor gaar ah oo free ah qofka koonada waaweyn qaata anagoo aan la furnay gacanta kula furno in soo weysiiya arlinkeyga uga furno qof mentor ah oo free ah ayaan siinayna isaga wax ka soo faahfaahina akoonkaas iyo magaalada in tiriirada ka tijaabiyo waxa soo dhan annaga ayaa qaabilsan si free ayuu la shaqeyn doonaa hal qof yihiin iyo haday dhowr qof yihiin oo la shaqeyn doonaa insha Allah. marka hadeen hoos soo degno kale ruleska shirkadan hadii aynu eegno halkan Q&A waxa way question answers weeyaan ayaad ka eegi kartaa. marka waxyaabo ugu muhiimsan waxa kamid ah stop loss ma u baahanahay waxyaabo noocaas ma yaabay ku yahay laakiin kula talinaya yani shirkadaha hore waxa jireen stop loss dad digan oo iska gashin tariirka oo laga xiraya laakiin shirkadani way ka duwan tahay stop loss uma baahnin swing trade hada qofka yani marka scalper-ka ah oo ka degdeg ku raba inuu akoonka uu trade-ka lacag uga sameeyo ku gali kara laakiin adigu lagula talinaya inuu sameeyo kan labaad oo kale hadaynu eegno overnight kan ma la haysan karaa la haysan karaa hatta overweek waa la haysan karaa ka waxyaabo badan ku arki doontaa shirkadda ruleskeeda kamid ah swing trade kan ma loo galiyaa waa trade-da waaweyn oo dhaadheer isbuuc iyo dheeraad socon kara overweek waa haysan kartaa waxyaabaha ay shirkaddan ugu wanaagsan waxa kamid ah inaan lot size lagu xadidayn wax lot size ah oo lagu xadidayaa ma jirto marka intan baa ka akhri doonaa waxa soo dhan waa ruleska ama su'aalihii laga jawaabo weeyaan marka su'aalaha aad soo fududeyaan halkii ku taalo oo kale ku taalin laakiin course way ku yaali xarun kale weyn Dubai bay ku leeyihiin marka intaasna waa soo akhri doontaan insha Allah. trading programs keeni hadan ku soo laabano akoonka sidee loo iibsadaa linkigeena marka hore iska soo diiwaan gelinaysaa qofka linkigeena iska diiwaan geliyo waxaan siinaa code ah 15% qiimo dhimis ah 15% qiimo dhimis ah akoonka 60 kuna ka soo qaad waxa qiimo dhimis u leeyahay lacag $60 ka badan $60 oo dhan soo save gareysid kaliya waxa ka xigay inta some invest timaadid ina WhatsApp kan aad la soo xiriirtay oo tahay code-kiisii qiimo dhimis taa ku siinaya halkaad gelinaysidna halkan imkaan ku tusi doonaa kadibna akoonkaaga intaas oo lacag ee save gareyn doonta hadaad linkigaas ka raacdo saas ku diiwaan gelisidna dee qiimo dhimis ma helaysid laakiin anaga linkiga noo khaaska ah koodhka noo khaaska ah shirkadana siisay 15% weeyaan qul weeyaan marka
linkkaas ayaad click soo siinaysaa kabaad imaanaysaa akoonka aad rabtay tusaale ahaan haddaad akoonada yaryar oo kale mid rabtay kan 60 kuna haddii aad rabtay isagun baad dooranaysaa kadibna halkaa start now yidhaahdo ayaad click siinaysaa marka halkaa click siisay waxaa kusoo baxay daaqad sidan oo kale ah markaa title master inaad adanin tahay dad gaban tahayna message soo qoran doontaa halkan magacan haddaynu magacyada iska gelino oo kale intaasoo magacaynu gelinay waddanka waxaan dooranay Soomaaliya gmailkeena waa kan halkaasaad click siin doontaa kadibna halkan kalena click waa siin doontaa saddex xagood inay click ku tahay halkanna inaad robot tahay baad caddaynaysaa halkaa click baad iyada siinaysaa sax kuu saaro ayaad sign up oran doontaa markii aad click siisay gmailkaaga ayaa lagugu soo diray email marka gmailkaaga aad raadsanaysaa kadibna isagaad ka soo qaadanaysaa wixii lagugu soo diray marka gmailkaaga markaad furtid waxaad ugu imaanaysaa passwordka gaarka ugu soo dirayaan marka waa kan passwordka dheer weeye passwordkaas aad copy soo sanaysaa gmailkaaga haddaad moodka soo gelisna oo soo copy garaysanaysaa haddaad computerka ugu xiriirsanayna oo soo copy garaysanaysaa kadibna waxaad la imanaysaa linka baad click siinaysaa linkii marka click siisay login ayuu ku saarayaa loginkaad click siinaysaa akoonkaagii ayaad gashan doontaa markaas salahaana kanoo kala akoon nooha passwordka aad siitay gmailkaagii iyo passwordkaagii ay kusoo direen isticmaali doontaa kadibna login badan doontaa halkaa waa kan halkan baa laga iibsadaa inka toos buu ku keenay halkan baa akoonka rabtid doona ka iibsanaysa akoonku waa kee horta marka hore micro mise macro halkan baa ugu kala dooranaysa adigu microad rabtid kowdhe saddex akoon baa kusoo baxay ka 60 kuna rabtid soo soco aggressive mise normal keebaa rabtid anigu normal baan rabay MT4 MT5 labada keebaa rabtid MT4 baan rabaa soo ahaan kale intan waad ka kala dooranaysaa dhinaca casho retray ah iyo unlimited retray free gas labadaas ka dooro waxaan kale waxa weeye iska waxyaabo kale dheeraad lacag dheeraad ku qorayaan tusaale kana hadaan ka insurance kana kala hadaan ku dhufano lacag dheeraad noo saaraya marka inaga daa waxaan lacag noo saareen birhamna kadibna halkan baad gelinaysaa koodhka waxaan noo soo bixinaysaa magaaladaada xilliga dhalatay waxaas oo soo bixinaysaa inagu waxa muhiim ah promo code halkay ku qoran tahay koodhkeena ayaan gashanaynaa marka koodhka ma gelin maayo qof koodhka u baahan gelin doona kadibna validate baa oran doontaa markaas tii kugu soo qoraya calaamad ah inaad qiimo dhimis heshay qolkiiba 15 kadibna halkan baa qiimo iska jaraya kaas 200 iyo wax noqon doontaa 40 iyo wax saasa kadibna saddexdan meelood baad click siin doontaa wixii aad ku bixinaysay ka sii dooran doontaa wax ku bixin doontaa Visa card ba Bitcoin ba dad crypto isticmaashid wala transfer dad isticmaashid marka kii aad ka dooratid ayaan badsi bixinaysaa naga imka waxa ay noo bixisanayn meelaha ay noo bixisanayn marka intaan oo lagu sii dhaafinaya insha Allah Visa card ama Mastercard aad click siinaysaa bixinaysaa okay oranaysaa dhowr daqiiqo kadib emailkaaga wax kugu soo dhacaya loginkii iyo passwordkii akoonkaaga aad iibsatay kadibna saas ku talagelin doontaa insha Allah marka waxaan la talinayaa telegramkeena ku soo biira qoraalkan akhriya linkigan hoose whatsappka weeyaan nagala soo xiriira wax kasta oo faahfaahinaya akoon kasta in la furayno aan soo weydiin doontaan insha Allah inta san ku soo gabagabeeyo. Assalaamu calaykum.